السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawo channelkayga magacayga waa Saaro. Haddaad adigu cusub tahay barasho wanaagsan, haddaad soo noqonaysid oo aad tahay subscriber soo noqonayana soo noqosho wanaagsan oo wacan baan ku leeyahay. Soo dhawaada dhammaantiinba. Haddaad weli subscribe taabanina fadlan channelkan waa channelkii wixii wanaagsan aan isla wadaagi jirnay kusoo biir baan leeyahay. insha Allah haddana waxaan guda galaynaa video wuxuu ku saabsan yahay. Marka maanta videogeena wuxuu ku saabsan yahay company la yiraahdo The Ordinary. I don't know inaan maqashanayn kale, but company-ganito waa company oo waxay soo saaraan alaabta maqaarka loogu talagalay skincare badan, ama Twitter ha ahaato ama Instagram ha ahaato, oo laga sheekeynayo mataqaanaa siday u fiican yihiin. Marka waxaan is iri bal 2020 one of the goals aan haysta waxaa waaye in aan skincare routine-keyga aan ka dhigo top priority. maxaa yeelay waa la gaboobaya, okay, ciraa la iska helay. marka waa inaad jirka iyo mataqaanaa wejigiina maxaa waaye waa baasaboorkii nolosha. marka waa in aad weliga ilaha dee wixii meel wax lagaaga sheego un baan ku orodnaa, waa inaa wax laga soo ogaadaa. So walaashin Sahro ku daaya, waxaan quarantine baan ku jirnaa, online orderkii wuu batay. marka waxaan tiri bal aan ka doono wiil waxaan follow gareeyaa Hiram la yiraahdo oo YouTube ku jira. marka wuxuu ku takhasusay channelkiisa oo dhan waxaa waaye skincare, and waxaan daawaday video uu aad uga hadlayo uu dhahayo mataqaanaa skincare ordinaryga skincarekooda aad bay u fiican tahay. marka qaar ka mid ah qaarkuu faaniyey ayaan bal is iri tijaabi. So waa inoo dalban wixii aan raadiyaba Ulta ayaan ka helay. Sephora ma aqaani way everything sold out waaye. I think waxaan u maleynayaa dadka badankood quarantine bay ku jiraan, marka everybody is shopping. So waan ka waayay Sephora, but Ulta markaan aaday Ultaan ka helay, and then a day later Ulta done was sold out. So I think a lot of people are maxaa la dhahaa way fiirinayaan company-gan ama way isku tijaabinayaan. marka aniga waxaan dalbaday waxyaalihii aan dhahay dee way ugu fiican yihiin markaan researchka aad u suubiyey. aniga markaan wejigayga wax marsanayo waxaan jeclahay marka hore inaan mataqaanaa company-ga inaan baaro waxay yihiin, waxay u istaagsan yihiin, waxay mataqaanaa geliyaan alaabtooda. company-ganitona waxaan ka helay laba wax. kow, wax walba oo ku jira mataqaanaa alaabtanito ay soo diyaariyeen waxa ku qoran gadaasha ayaa ka helaysaa everything. wax walba ay baalkanita lagu suubiyey iyo mataqaanaa waxa ku jira, waxa laga sameeyey, kulli waa diyaar bay ku yihiin inaa ogaatid waxay yihiin. talabaad aan ku jeclahayna waxaa weeyaan waa raqiis. marka jeebkaaga xanuun badan ma gaarayo haddii lacala ay ku shaqeyn weyso ama mataqaanaa aad waxa iskaga arki weysid, khasaaro badan may ku gaarayso. marka aniga intan baan soo gaday. intana waxay kala yihiin ugu horeeya. horta company-ganitana gabar walaashay Xamiida la dhaho ayaa anigoo safar mataqaanaa aaday Canada iyada ay bartay, laakiinse wili waagaas 2018kii bay ahayd. waxaan kasoo gatay bahashanito oo loogu talagalay indhaha. dadka indhaha madow baan ahay aniga, hurdo la-aan hadday igu dhacdo indhaha hoosta way imadoowaadaan, waxyar barar baa gala, mataqaanaa baalasha dhan iyo meelahana way imadoowaadaan. marka bahashanito waxaan usoo gatay maalin waagaas in aan bal indhaha ku caddeeyo. dee maxaa ku taqaanaa hooyo ilmo leh, I don't know meesha aan dhigay bahashii way luntay mana ku noqon. marka ta ugu horeysa aan soo gaday waxay ahayd tan. waxaa waaye the caffeine solution 5% plus EGCG. marka waxay dhahayaan it reduces appearance of eye puffiness and pigmentation. marka madowgii iyo hareerahan kuu sheegayay iyo mataqaanaa bararka ayay dhimaysaa. waa wixii loo baahnaa. marka insha Allah tan number 1 weeyaan. ka labaad waxaa waaye Hyaluronic Acid 2% plus B5, this thing here. marka kan iyo tan aad baan wallahi waxaan rajeynayaa in ay ii shaqeeyaan. laba kale oo vitamin C serumna waan soo gaday.
kan waxa waaye vitamin C suspension 23% plus HA sears 2%. kanna wiilkii markaan dhegeysanayay wuxuu dhahay aad iyo aad bay u fiican tahay. alaabtanna waxa waaye a brightening serum with stabilizing vitamin C. so iyadana waan soo gaday. laakiinse labada aad iyo aad loo faaninayo oo aan meel walba mataqaanaa youtuberada hadday ahaato kulligood ay isticmaalayaan ama ay mataqaanaa markaan just cilmi baaris caadi aan suubiyey labada shay oo la dhahayo waa labo aan caadi ahayn. waxaa waaye this AHA 30% plus BHA 2% peeling solution. marka waa exfoliant. waxaa ku qoran 10 daqiiqo bes baad u baahan tahay weekii hal mar. marka tan wallahi I am really excited about it. iyo niacinamide 10% plus zinc 1%. marka this thing oil kaneeto wiilkii iyo mataqaanaa harumka nii sheegayay iyo dadka badankood oo skin care enthusiast ah waxay leeyihiin kan inaba caadi ma aha. marka maxay igu ogtihiin dee waa noo soo dalbay waxaan oo dhan kow dheh badankoodna waxay ahaayeen wallahi ka ugu badnaan wuxuu ahaa $10 baro malaynayaa. igu ogaada inaan salkooda soo fiiriyo waxaaneeto hadday run yihiin iyo haddii kale waan soo ogaaneynaa insha allah. marka 3 cisho oo dhan waxaan rabaa in aan isticmaalo maxaa yeelay badankood waxyaalaha maqaarka la marinayo oo jirka mataqaanaa wajiga loogu talagalay shaqadooda ama waxtarkooda waxaa la arkaa 4 isbuuc ka bacdi. marka insha allah waa inoo 3 cisho ka bacdi iyo productyadan aan niga soo warmi doono hadduu ilaahay yidhaahdo. idinkana bal ila soo socodsiiya waxyaalaha aad isticmaashiin oo nii shaqeeyey. waxaa laga yaabaa gabdho walaalaheena inay naga faa'iideeyaan. so commentiga hoos ku soo qor haddii aad isticmaashay ordinaryna oo aad wax ku og tahay bal nala wadaag may fiican yihiin may xun yihiin bal noo soo sheeg inta 30 maalmood la isugaayo. haddii aad adiga already mataqaanaa war faahfaahinaysid dee noogu soo qor walaashay hoos insha allah. intaas baan niga tegaya hadduu ilaahay yidhaahdo. haddaa videogan ka heshay fadlan subscribe ka taabo like ta saar share gareeya walaalaheen dhan noo u share gareeya commentkana dhiiba insha allah. waa inoo maalin dambe iyo video kale iyo muuqaal kale oo walaashiin saare oo idin leh nabadgeliyo. asalaamu calaykum.